munaasabad lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashandhiga ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu daafurayay dhisme cusub oo halka ay ka hirgelisay Midawga Yurub waxaana halka ka soo qayb galay xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo safiirka Midawga Yurub u fadhiya Soomaaliya. safiirka Midawga Yurub ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dowladda Soomaaliya ka kaabi doonto dhaqaalaha iyo waxyaabaha ku baxa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. And you have a lot of challenges ahead. But I think the most important thing, before I introduce our Deputy Secretary General, that I'd like to say is that the European Union has been a long-term partner of Somalia. We have been here throughout the last 25 years, through very difficult times, and we intend to continue to be your long-term partner. We have been reliable over these years, and we will continue to support in what's a very important agenda of strengthening the security of Somalia, with the ultimate objective, as the DG said, of what we've seen in the neighborhood of providing a better life for all Somalis. wasiirka wasaaradda gaashandhiga ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal oo munaasabada dalkooda ka jiidiyay waxa uu mahadceliyay Midawga Yurub wuxuuna ku amaanay dhismaha quruxda badan ee ka hirgelisay xarunta wasaaradda gaashandhiga ee Soomaaliya. runtii EU waxyaabaha ay halkan ka qabatay oo wasaaradda gaashandhiga ay u qabatay waa wax macno weyn ku fadhiya macnana u sameyn doona wasaaradda gaashandhiga. qalabka halkan yaala dayactirka lagu sameeyay guud ahaan wasaaradda gaashandhiga waxay wax weyn ka tari doonaan ma ay ka qayb qaadan doonaan hawsha u taala wasaaradda gaashandhiga khaasatan dhinaca la shaqaynta dadka civilianka ama ciidanka iyo civilianka wada shaqadooda. Midawga Yurub ayaa waxay Soomaaliya ka kaabtaa dhinacyo fara badan waxayna qayb ka tahay horumarka dhinaca ciidamada waxaana dhowr jeer ay magaalada Muqdisho ka hirgeliyeen xarumo kala duwan iyo qalab ay ku saacideen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Xuseen Bulsho Tv Muqdisho.